kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan meel kasta oo daafaca caalamka joogtaan soo dhawaada ayaanu idin leenahay haddii wallahi awood leeyahay ma halkani waxaan u fadhinaa maanta in aan ka hadalno arrintii baraha bulshada gilgishay iyo dhacdadii yaabka lahayd ee ku saabsaneyd gabadhii hani ahayd ee labada nin kulmisay taasi oo baraha bulshada ninba si u fasirtay oo xitaa aan arkayay ciyaal faar iyo tiktok waxa ay sameynayeen oo ay u bixiyeen ninkii waa ninka ugu horreeyay abid miyaro noqdo ninka ugu horreeyey oo abid miyaro noqday dhehen oo islaam bahyar u noqday macnihi soo ma fahmi barnaamijkani waxaa igu heliya saaxiibkii mar walaalkay wacane oo isaga laftirkiisa aan yaraysan ciyaal faarkaas ka mid ah oo arrintaasi si dhow ula socday wacane soo dhowow bal xagee arrimihii ku dambeeyey aad baad mahadsan tahay maalmihii ugu dambeysayba arrintani waxay qabsatay dhammaan baraha bulshada hadday facebook noqoto tiktok meel kasta waxaa un la hadal hayay gabadhii kulmisay labada nin laakiin arrintii markii dib loo eegay oo gabadhii ay hadashay oo makhraatiyaal la helay oo wax walba la helay gabadhu marka hore waxay tiri anigu weligeyba layma guursanin waxba ma dhalin waa saas hawl adag bay ahayd arrintii meel loo qaada la waayey wakii ay dabagaleen niman youtuberre waaweyna kuwaasi oo inta badan macluumaadka kolbaba maxaa dhihi jiray makhraatiyo horle soo saariyey wixii qarsoonaa oo dhanba waxay fashilmeen markii wiilkii gabadha marka dambe guursaday ee hadda ay u bixiyeen wiilka ugu horeeyay dhalinyarada noqday uu dhahay nimanyahow hawsha waan soo ogaaday waana dhaaranayaa inaan waxba ka ogeyn marka hore ka ogeyn haddana aan wixii khaldamay aan saxayo gabadhiina wakii ay way hadashay iyadnana oo hadii waxba meesha uma yaalo gabadhu dadka marka hore waxay dhahayeen waxaa sixray kamaal laakiin sheekadu way ku horeysay gabadhu waxay tiri muddo 4 sano aba ninkan islamaana deganiin oo meel cidlaan ka deganaa haddii aan ku qabsan lahaa ciyaalka iyo waxaan ciyaalka inay gaalada iga qaataan baan ka yaabiyay bay tiri ninkan wuxuu leeyahay gabadhu way waalan tahay oo maskixiyan bayba u jiranta waa cabdi ninka la dhahayay ninkeedii hore sidaas darteed gabadhii marka waxyaabo badan iyay fashishay dadka qaar waxay leeyihiin ha loo duceeyo oo gabadhu way waalayda bal ilaahay ha caafiyo dadka qaar waxay leeyihiin gabadhan waa naag mufsidada oo maxaa la dhihi jiray laba nin bay guursatay oo meel lagama hayo ninba meel buu fasirtay sidaas darteed gabadhu waxyaabo badan oo ay sheegtay darteed waxaad moodaa in yani hadalkeeda uu yahay contradicted oo yani iska hor imaanayo sidaas darteedna ay maskixiyan problem u jiro ama ha ka haysta xagga familkeeda ninkeeda ama ha ka haysta dhinac kaleeto ama si kaleba ha waalan qofku iska waalan karaa mugta stress baa iskaga dhufan karaa dadka qurbaha joogana intooda badan dee wuxuu ama lacag la-aan baa ku dhacday mise wax kala ku dhac garanmaya maalmahan dambe waalida aad bay ugu soo badanayaan hadday ragga noqdaan iyo hadday dumarka noqdaba baryahan waxa weeye aad baa waali loola soo laabanaya dadku waxay arki jireen inay lacaga lasoo laabtaan dad waali lasoo laabanayo ayaa hadda maalmahan badan islaan intay ninkeedii kasoo tagto ciyaal xagga oo tagto afrika imaanayso 2 nin guursanayso xataa la arag marka hawlo badan baa jiro islaantani ama gabadhani hani ah waxaa sidoo kale barnaamijka ka qayb ahaa oo yaabka ugu badan ahaa gabadheedii oo hadda qaangaar ku dhow inay soo fariisatay mar oo hadlaysay horta gabadhu oo ay lahayd hooyaday saynoo inkiri hadee islaantu ma garanay xooguu horta waxaan ku leeyahay gabadhu waa xanuunsanta marka hore sixir baa lagu tumiyay laakiin gabadhu si horta waxaan dhihi lahaa dadka cilmi nafsiga iyo waxaas ma garan dadka la sheekaysta gabadha loo geeyo hala sheekaysto bal yani wuxuun baa wixii khaldan wuu soo bixi lahaa ayadu waxay leedahay gabadha markii hore gabadha iska difaacaysa gabadheed markay soo fadhiisatay waxay dhahday yani waa hooyadii bay lahayd tan kalena way u jawaabto waxay tiri waa hanidiye waxay tiri gabadhan saaxiibanahay waaye sawirka arooska xataa kole anaa u diray marka wixii way isku qasnaayeen ugu dambeyn gabadhii waxaa la yidhi wiilkii yaraa ay u bixiyeen ciyaal faarka waa minyarada ninka ugu horreeya minyaro noqday u bixiyeen waxa uu sameeyey wuxuu yidhi wixii go-aan aan gaarayo oo ku saabsan arrimahan hani iyo sheegashada ninkaasi barayfad baan go-aan uga soo gaari taasina dabcan waa xeer rageed bay ka mid tahay oo dee qofku inuu maadaama social media baryahan wuxuu iska noqday maxkamad caadiya oo dee qaadigii baa fadhiya waxaa fadhiya dee qof kasta oo u dhuundulilay arrimaha bahalkaa fadhiya waxaa la rabaa maxaa dhihi jira wixii meesha ka dhacay in lasoo bandhigo oo ma garanaysaa bulshada loo keeno hadda ma jirtaba waqti iska dhumiyo lawyer qabsi meel aad iyo dacwo fur ma jirta hadda culimo ka hadasha arkayay oo maxaa dhihi jiray le
gabadhani Ah. dembi bay ku dhacday Ah. xataa ninka ragga ah markuu naag gursanayo ama Ah. garoob ha hata muxuun hato Ah. inuu iska hubiyo oo faamilkeeda iyo reerkooda waa dee rugni diiniya waa aad wey gabadha adan islaanada aqooni baad iska gursatay asaas islaanta backgroundkeeda ma garanaysid waxaa laga yaaba inay 5 sano AIDS qabtay oo sakaraad baahida u dhiman rabto asaas reerkooda haddaad ka doonan lahayd inay kuu sheegi lahayn oo laga yaabo war gabadha anadu way xanuunsantaa laga yaabo inay reer balahayn baa laga yaabaa oo ay iska tahay ilaahay uu sheegi karo waxaa kaloo jira wacane eedeyn ay soo jeedinayaan dadka badanaa baraha bulshada ee dadka isticmaala dadka waa dad baraha bulshada isticmaala ee qaab khaldan u isticmaala iyo dad iska caadi iyo waxyaabaha dhacdooyinka iyo waxyaabaha in laga hadlo u baahan dabcan ee bulshada loo soo bandhiga ka hadla dadka marka ma siina baraha bulshada isticmaalo dad waxaa jiri marka si allaba cambaarinaya dadka baraha bulshada arrimahan ka hadla macal innaga xitaa aan ku jirin iska kaan cambaarinayay dadkaasoo dhahayay caanimadii baa meel xun gashay oo gabadhaasi iyo wiilka waxay sidaa u sameeyeen waxaan waa baraanka oo caanimay raadinayaan macalinkaasi caanimay raadinaya oo lacag baa la siiyey hawshani waa hawl yani laga soo shaqeeyey marka maxaa arrintaasi maxaa hortaad ogtahayba ninna reerkiisa kuma raadsanayo caanimo in ciyaalkiisa uu ceebayo hooyadooda u ceebayo maxaa dhihi jiray islaan dhan ay sumcadeedii ay ku tumato laakiin arrinta ilaa xilligan anigan ka yaabana waxay tahay gabadha reer iyo walaal iyo ehel bay leedahay aad iyo aad kamay soo hadlin oo ma aysan dhihin gabadha anada maxaa sababta loogu sameynaya waasaas maxaa dhihi jiray yani waan garan laha shaki badan baa jira shaki baa jiro waasaas marka arrintani ma noqon karta arrin oo yani caanimo lagu raadinayo ma noqon karto qofna sumcadiisa kuma gateen caanimo uu gadanayo oo yani uu rabo inuu soo caanbaxo waasaas caanimadu waa loo beri laakiin sumcad iyo wejiga aha waxa weeye waa waxaan maanta muuqaalkan aan duubayno aad iyo aad ciyaalkeena laga yaaba inay daawadaan waasaas hadduu ilaahay cimrigaas uu gaadhsiiyo aad u weyn marka waxaad arki kartaa marka in yani caanimadu aysan loo geli karin meelaha qaar meelaha qaar loo ayaan geli ku karin. sheegay Hadee- kale dadkan youtuberleyda haysto Mhm. youtuberleydu waxyaaba badan oo qarsoonaaba hadda banaanka keenay waasaas marka in banaanka la keeno oo dad maxaa la dhihi jiray aan isqabin oo reer isla deganaa in inta la kala qabtay ha maanta la kala badbaadiyey aad iyo aad waxa weeye arrin fiican waay Waa arrin oo fiican. youtuberleyda ay keeneen soo ma masaajidda lagama keeni masaajidda u dhicine Masaajid- yani waxaan kuu sheegayaan يعني ها wax meesha meelka laga soo ogaaday ma aha laga soo ogaaday Inta ma laga youtube-ka keenay. laga keenay ciyaal faar baa shaqeeyay ها ناس sawirray keeneen ها wixii ciyaal si wallahi tiina shaqeynaysa ma garata mar shaqo fiican ma wadnaa Waa marka hagaag. shaqadani waxay loo baahan yahay inay shacabku ay taageeraan oo muuqaalka ay sheergareeyaan oo gaadhsiiyaan meel walba ay gaadhsiin karaan aad u weyn wacyigelinta ugu badan ee innaga hadda maanta aan uga hadlayno muuqaalkan waxaa weeyaan dabcan qofkaasi haba ahaado qof mentally illness ah oo yani family problem haysta ama depression badan inkastoo dee qofka muslimka si walba oo ay dhibaato usoo wajahday iimaan looga baahan yahay inuu yeesho looga baahan yahay in yani xarig ilaahay uusan jarin looga baahan yahay sababtoo ah sida hadda gabadhan ay samayso oo kale waalida laftirkeeda kale ah qof waalan horta guur iyo damac iyo meel uma aadahayo hadduu qofkan waalan yahay taa family problem waa laska kaadhiya ha ku jiro waxaan family problem laftirkiisa wax dhaqama gaalo waa laftirkiisa mo family problem lagu sheegayo wax dhaqama gaalo bahalka ku saabsan weeyaan sababtoo ah haddii family problem uu jiro ama dhibaato reerka ay jirto waxaa jirto sababo badan oo loo xalin karo baa jirto quraan baa la akrin karaa la akhrisan karaa oo xariga ilaahay maxaa wactasimu bixawlillahi ilahi subxana wataala uu yiri markaad yani yaabtaan ama uu khoof idin soo yani food saaro xariga ilaahay qabsada oo diinta ilahay baa u dhow meel lagu cararo qur-aankaasaa kamid ah waalidiintii iyo ehelkii in lala yani dhiskaas la sameeyo ama lala hadlo la sheekaysto ama wixii dee la xaliyaa yaa kamid ah haddii xanuun kale u jiro laftirkeeda ilahay baa keenta xanuunka lama waalinayso boqolna iskuma guursanaysa hadaad naag tahay hadaad nin tahayna ilmahaad inkiri maysid ka tegi maysid soo fahmi marka wacyigelinteenan waxay xambaarsantahay galabtaan u direeno waxyaabaha dhaqamada ah ee reer galbeedka iyo reer yurubta iyo wadamada qalaad ee soomaalida ay intay tagaan ka barteen waxaa kamid ah waxyaabahaas oo kale oo cusub sanad walbana bil walbo oo inoo imaatan oo cusub baan la kulanaa waxyaaba noocan oo kale way dhacaan yaa imaado laakiin bulshada soomaaliyeed waxaan nahay dad islaama aad u weyn dhaqan baan leenahay wanaagsan sax waxaan kula talinayaa inaysan yani waxaan oo kaleeto ay ka waantoomaan intay ka waantoomi karaan aad iyo aad yani qofka ragga waa waxaaba la dhahayba afar baa loo baneeyay diinta u banaysa laakiin naag nin qabo inay nin kala guursato ah waa arrin adag waa saas hadda maalmahan dambe naagaha xataa kale islaama marka lasoo furo intooda badan waa inay sugaan cuddad waxa la dhaho ha cuddadii qaar aan sugaynin waxaaba jiraba dee indhahaasan saarayba ma garata indhaha aan aniga laftirka waa waa saas marka waxaa weeye haweenka waxaa looga baahan yahay inay yani ay diinta usoo laabtaan oo yani shahwadaas hayse iyo nidaamka iyo orodka waxaas magaranaysa waxba ma waayaan wixii ilaahay u qoray mar walba ay la kulmayaan inta ragga iyo dumarka laftirkoodaba waxaan kula talinayaa
inaysan yani waxaan oo kale ee hadda foosha xun ee dhacay aysan samaynin. inaysan samaynin Aad u weyn. ayna ka waantoobaan insha allah maxaa la dhihi jiray ilaahay hana hanuuniyo wadada toosan ilaahay ragga laftirkooda ilaahay mas-uuliyad buu saaray adduunka arkayso alla ka sokow rag baa maamulka loo dhiibay oo muxuu ahay dumarkani waxaa la yidhi farqa noocan baa laga abuuray waa iska masaakiin gacmaha iyo fikradda iyo maskaxda ragga kama weyno waa wax ragga ku hoos nool oo ilaahay baa raggii mas-uul looga dhigay marka ragga laftirkooda maxaan baa u diraynaa maxaan leenahay waxaan leenahay ragga mas-uuliyadda saaran ee shalayto markay gabadha ay guursanayaan reerkooda ka doonaya ay qaadeen inay siday tahay ay u gutaan ilaahayna oga baqaan qofkani waa qof asaga hoos yimaaday oo mas-uuliyaddiisa u qaaday ma aha yacni inuu intuu ka cadgoosto oo maanta meel walba ku ceebeeyo ma aha in yacni wixii xal laga gaari karo oo family lala xiriiri karo ama culimada lala xiriiri karo marjiciyada islaamiga ha loo laabto ha loo tago wixii ay ka xallin waayaan markaasi haddanana meesha kaloo lagu xallin karo ha lagu xalliyo qofka ceebihiisa inaad fadhfaadho ma fiicno meelaha uu ka jilicsan yahay inaad ka gasho ma fiicno inaad intaad ilaahay oga cabsato aad iska dhigto qofka يعني dhibaatada maanta ku dhacday inaad adigoo kale iska soo qaataan la rabo marka insha Allah waxaan kula talinayaa inay ragga laftirkooda mas'uuliyadda ay qaadeen siday tahay ay u gutaan insha Allah ay u gutaan oo ogaadaan markasta inay yihiin dumarka nugul naxariis in loo muujiyo in muxuu ahaayay wixii xun oo ay ku dhacaysa laga qabto la yiraahdo ka joog